وعنا wanaagsan dhammaantiin baa khiyaarta hawada naga daabasay waa maalin jimco ah maalin kastoo jimcaana waxaad nooga barateen maxaa cusub podcast barnaamij cusub maanta maxaa ka wanaagsan inaynu dul istaagno sawaxanka maraykanka ka soo qaylinaya yeeritaanka Canada looga yeerayo Maxamed Cumar Cartan iyo Mexico oo ku tumatay South Africa maxaa ka wanaagsan inaynu helno ninkii dhalinyarada ahaa ee markaasi BBC iyo Guardian isku qabsatay ee markaasi warka qarxiyay عمر عرتن مركز جوني سجوسي يقانين وحوين أجاسما سبورتس كأستان وأنا محمد يرى مودة أيكم قاعديري هاي مركز هو السودو صاحب فرحب عليه هاي إلى محاوس بودكاست ما أنت كسر مقتد أبدأكم السلام يا كورها ويست لندن ينورشيدي أدبا ما أحسنت هاي صاحبك قدر درر رونانتي وحامل يسال لبض كل اللي لبعتك أنا نساكين أولاد شيء لبعتن حفيزك BBC ده أيام سكي وردن بيسي marka maxaa cusubna waa yani howl aad iyo aad u weyn waaye adiga iyo dadka kala shaqeynaya shaqo fiican oo wadaan stuudiyihiina waxaa u malaysaaba stuudiyaashii laga wareysanayay BBC-da iyo Jazeera inaa ka horeysaanba oo Allahu akbar aad u diyaarsay inaa ma jeclaan lahaa stuudiyaha waad maasanta ballanna way ku qaadanaa waa noo imanaysa aynu soo noqono waqtiga ay haya Cumar Cartan Miami waa laga soo eriyay Muqdisho lagu soo dhaweeyay Turki waa cagaha soo dhigtay ku noqon maayo kaas World Cup kiiba ka bilaamay Mexico Mexico bay yiraahdaan iyo Canada iyo USA labadii ugu horeeyay waxay dhacay shalay buu dhacay Mexico iyo South Africa aynu ku noqono ciyaari adduunka Maxamed Cumar Cartan sheekadiis waa dheer tahay in badan oo ka sheekaysan doonaa sidoo ku yimi sidoo warka kugu soo gaarsiiyay qofkii ugu horeeyay ee sheekada la wadaaga buu ahaa xiriirka inga dhaxeeyay dib baan u imanayaa والورلد كاب كي هالكون مريا وحتى يارها كل دو وركودنا هيا waxaa xalay si weyn loo dahfuray koobka adduunka oo sanadkan aad loo sugayay inkastoo sanadkan koobka adduunka uu hareeyay dhacdooyin kala duwan dhacdooyinkaasi oo qayb ka ah martigelinta koobka adduunka waddanka Mareykanka sharciyo qaar fiisooyin dalal badan aan kasoo qayb gelin shaqaalahooda qaaska ahaa waxyaabo badan koobka adduunka yani intuu soo furmay kor saameyn ku yeeshay ayaa xalay si toos oo furmay waxaana lagu furay dalalka martigeliyaasha Mexico Mexico iyo waddanka South Africa Bavana South Africa laftigeeda buuqa ku furnaa maadaama dadka reer Afrika ee ku nool South Africa ay u qabteen waqti ay u qabteen inay isaga baxaan dadkii shaqaalaha ganacsatada dalkaas isaga baxaan South Africa marka dalal badan oo Afrikaana oo ay u horeeyaan wariyaal iyo dad influencers ah aad ay ugu soo horjeedeen xulka Bafana waxayna dhahayeen inta ciyaarta bilaaban ka hor xitaa haddii garoonka South Africa ay wada ciyaarayaan oo la weydiiyo waxaan taageeranaa garoonka taageeranaa haddii xul kasta ay la ciyaaraysan xul kasta ka soo horjeednaa marka Mexico waxay ku bilaabatay marka ciyaar aad iyo aad u wanaagsan ay ku bilaabatay guul weyn ay gaartay garoonka weyn ee taariikhiga ay ku soo ciyaareen Diego Armando Maradona Santos Nascimento Pelé iyo ciyaaryahanno hore qarniyo hore lagu soo ciyaaray isla garoonkaas oo dhowr 70 lagu ciyaaray ayaa haddana lagu furay Mexico oo u ciyaarayaan laacibka Wolverhampton Wanderers Raul Jimenez ayaa waxa u suurta gashay inay yani ka dhaliyaan goolal ciyaarta bilowgeedii hore ciyaarta waxaa la qaatay 3 roose koobkii adduunka kan ka hore asaga dhan 4 roose la qaatay xalay oo bisna waxaa la qaatay 3 roose marka waxa la yaabo waxay noqotay arrin mucjiso ah South Africa waxaana meesha ka baxay qadarow waxaa meesha ka baxay heybadii gaarka ahayd ee qaaradda Afrika waxaa lagu aqoon jiray yani banooni ka duwan banooni Europeanka ama Latinka banooni xoog ah banooni orda laadad adag yani Afrika waxay ku xisaabtami jirtay energy-geeda laakiin xalay Afrikada ciyaaraysay Afrikadii looga bartay ma ahayn ciyaaraha oo fursadaha iyada ay ku fiicneed Afrikadii ka faa'iideysanaysa maahan waxa jooga Morocco joogaan Congo oo ay aad u fiican joogaan Africa xulka ugu da'da koobka adduunka qayb galay average ahaan ayaa jooga laakiin South Africa 2010 Bafana ee Shabalala u dhalinay يعني لو دبل دقيقة ما نقول South Africa دان مركا واي aynu nimaadno ciyaartii waan ka sheekeynay waxa hareeyay baa tiri waxyaalo badan baa hareeyay koobkan adduunka Mareykanka ka dhacay iyo Mexico iyo Canada waxyaalaha hareeyay maxaa kamid ah qadar waa maasan tahay adduunyada horta sida hadda loo kala qaybsan yahay oo dhanka tiknoolajiyada iyo siyaasadda lagu kala qaybsan yahay oo bariga dhexe
lagu kala qaybsan yahay colaadaha ka taagan ayaa hadda isboortigana uu galay kala qaybsanaan waxaana kala qaybsanaantaas saameyn ku leh guddoonka sare xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo wadamo badan ay kasoo horjeesteen iyadoo doorashada FIFAna ay soo socoto iyo sidoo kale Mareykanka oo u maleysidba in FIFA isaga uu maamulayo maxaa yeelay dad badan waxay tuunsan yihiin madaxweynihii ka horeysa Blatter in Mareykanka uu xoog kaga saaray xilka ciidamo uu geeyey si aan toos loo soo bandhigay isagoo gurigiisa la joogo fadeexa lagu soo oogay marka dadka qaar waxay leeyihiin garab qabasho ayuu ku imaaday Infantino halkan taasna waxay keentay in Mareykanka uu sidii rabo uu ka sameeyo koobka adduunka sharciyadii uu qaar uu jibiyo ma aamini kartaa in guddoomiyaal badan oo kubadda cagta yani adduunka ka maamulo inaysan imaan koobkan adduunka waxaa ka mid ah guddoomiyaha xiriir kubadda cagta Eritrea waxaa ka mid ah guddoomiyaha xiriir kubadda cagta Soomaaliya waxaa ka mid ah guddoomiyaha xiriir kubadda cagta maxaa la yidhahdaa Ethiopia wadamo badan imaan sababo la xiriira Uganda ka mid ah sidoo kale sababo la xiriira Mareykanka sharciyadiisa ayuu fulinaya Uganda waxaa la dhahay Congo diristihiin Ebola 24 saacadood ka badan ayaa waxaa galeysaan isolated dad mas'uuliyiin ah oo wadamadooda ka imaaday oo wadankooda wax cudur ka jirin ayaa waxaa loo sheegayaa inay isolated galaan marka sidaa darteed way iska dhaafeen madaxweynayaasha qaarna waa loo diiday fiisooyinka inay helaan waxaa lahay cunuqabateena saaran oo dhanka hubka ah tilaabooyina jiraan waxyaabo saas oo siyaasadda ku saabsaneed ayaa loo melimariyey oo sidaas ayay ku waayeenba inay ugu soo qayb galaan koobka adduunka marka koobka adduunka ujeedkiisana wuxuu ahaa in albaabada adduunka uu isku furo dadka uu mideeyo taas marka waxay sababtay dad badan oo xitaa European ah wadamada Europeanka ah inay aad u cambarayaan oo ay dhahaan hanaanka hadda koobka adduunka loo qabtay hanaan fiican maahan sidoo kale dhaliilaha koobka adduunka waxaa ka mid ah price-ka tikidada hadda Ingiriiska waxay leeyihiin garoon maran ayaa laga yaabaa inay ku ciyaaraan hadda media hadda la qoraya waxaa leeyahay garoonka Ingiriiska ku ciyaari doono waa garoon mid sababta tikidada lama iibsan tikidada qaar waxaa la yiri dadka dabaqada sarbis ay FIFA ku jangoysay oo dadkii dabaqada hoose ma loogu talagalay ciyaaraha inay ka qayb galaan sababta price-ka aad u kacsan taas waxay doonayaan wax ka badan weeyay taas waxay keentay dhaliilo waxay keentay in lagu kala qaybsamo marka waxyaabaha soo dhan hadda oo arkaysa xataa UEFA laftigeeda iyo way kala fogaadeen Infantino way kala fogaadeen Champions League kale lagu macsuumeynin Congress-ka lagu macsuumeynin marka doorashada soo socoto hot ayay ka dhigaysaa yani sida hadda dunida kubadda cagta ay u kala qaybsamayso ana markii ugu horeysay oo kubadda cagta lagu kala qaybsamo dhacdada hadda Cumar Cartanna way ugu sii dartaba oo hadda waxa arkaysaa UEFA inay ku casuuntay Super Cup-ka maahan yani waanu imanaya Cumar Cartan waa halka ugu dambeeya u socdo imika waxa lagu hadana waxa Canada iyo ciyaar waxa soo Canada iyo waa lagu ciyaarayaa iyo markaas Mareykanka waa imika yana imanaya ciyaaraha soo socda waa maxay Mareykanka Paraguay oo ciyaara runtii groupkooda waa ciyaaro ama group isku dhow waaye wadamada Paraguay xilli fiicnaa jirtay hadda yani Paraguaydii hore maahan Mareykanka laftigiisa xilliyo fiicnaa oo sidan ka fiicnaa laakiin hadda wuxuu haystaa ciyaaryahanno yani macquul ah sida ay diyaar garow ugu galeen haddana waddankoodii joogaan waxaa la qiyaasaa inay gurbiyada kasoo gudbi karaan laakiin ma ahan wadamada favorite-ka ee la dhahayo koobka adduunka sanadkan way ku guuleysan karaan maahan waxay la mid noqonayaan dalalkii martigeliyay koobka adduunka hase yeeshee haddana aanan gaarin finalka oo ay ka mid ahayd South Africa wadamadaas ay la mid noqon doonaan oo Brazil laftigeeda markii ugu dambeysay martigelinaysay yani aysan gaarin finalka oo Jarmalka la ogaa sida ay ku dhigtay marka Canada iyo groupkan Switzerland iyo Qatar ay ku jiraan iyagana aad loo hadalhayaa Qatar way diyaar garowday dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciyaaraysa laba nin oo mid aabis oo Soomaaliya qaranka u soo ciyaaray Afif sidoo kale yar oo isaga lamar nooba ayaa u ciyaaraya oo Cabdisaaq la dhaho oo aad u wanaagsan Yusuf oo aad loo hadalhayo kaas oo la filayo inuu isagana uu kusoo bilowdo Switzerland waa taqaantaa waa wadan bununigiisa oo dhan ku bees gareysan yahay ciyaartooydiisa inay ka ciyaaraan horyaalada banaanka ciyaartooyda dhan badankood waxay ka ciyaaraan banaanka waa horyaal yani xul loo diyaariyey inuu xulalka waaweyn uu yani la mid noqdo waayo waxaan la xulka lagu burmid gareeyaa ciyaaryahan kale xulka inuu kusoo dhex muuqdo inuu horyaal fiican ka ciyaaraa marka Switzerland dabcan xul yani oo fudud maahan groupkan isaga ayaa ugu adag groupka Canada iyo ku jiraan Qatar iyo ku jiraan marka xaalka waa sidaas groupka waynu ka nimi World Cup intaanu ka bixin yaa ugu cadcado sanadkan koobka qaaday loo malaynayaa of course Qatar way iska caddahay super powerka xilligan kubadda cagta
وفرنسا وبرتغيسكا ومركا فرنسا لقى إمادو دالكا سدحات أما أفراد نقو كرو وأرجنتين وكوبك الدفاع عنيسا وميسي ديارات دي لن عيارتين سوق هذه كسو حرنتي وحسدو كلا كجرا ودمدا يعني آدك وفي عن ودن كان إسبين ورنتي هايستا تالنتيو لامين يامال رودري محلا بتري يعني ودمدا هذا كل شيء أفرت ودن وعلس واي ودمadaas ayaana la filayaa inay meel fiican ingiriiska laftigooda ma xuma laakiin markii ugu horreysay 16 nin oo madow ah ayaa xulka ingiriiska matalaysa ciyaartoy waaweyn oo laga soo tagay Cole Palmer laga soo tagay Foden laga soo tagay ingiriiskana ciyaartoy ugu dambeysay way adkaadeen 3 eber ku adkaadeen ciyaartii yani saaxiibtinimo ciyaareen Tuchel wuxuu dhahay waxaaba helo dhahaba subagii aan ku qaadi lahaa koobka adduunka haddaaba helo leeyahay waa isku filan oo leeyahay way Brazil xagee ku dambeysay برازيل قدروا برازيلي أن كسر بربارني ودي معهن برازيل وأيد دم بهوس رع أيا كيمت سبتنا حياتها وحيد ورشة صارت اللاعبين ورشة صارت اللاعبين تهد برازيل وهوري لكن سنديه الدم بهوس رع أيا كل عي وعيارتود ما يسنقون إن عيارتود أدونك وصل سرعة ما يسنقون إن نمر كدب فينيشس صباح فينيشس نمشي الرويل موسنجارين marka weerarka Brazil oo kale uu fiican laakiin dhibaatada ugu weyn ee Brazil haysato waa dhaxda waxa leeyahay awood yani xululkan waaweyn hadda aan ka sheekeynayno ee kula dagaalanto ma lahan laakiin Brazil waa Brazil oo koobkan ayada markasta macaan u ah sida Real Madrid ee champion ka tahay ay ka tahay Brazil koobka adduunka marka waxa laga filan karaa in yani spiritkooda fiican inay wax fiican la yimaadaan laakiin sida ciyaartooyda lagu qiyaasayo ciyaaryahanada waaweyn ee dhaxda oo ciyaaraya ka sameera yarkii ninkii uu ciyaari jiray Liverpool oo kale rag waaweyn dhaxda dheeray marka dhax fiican ma haystaan marka laakiin weerarkooda ma xuma laacibka Barcelona oo kale garabka u dheelo Vinicius ma xuma iyo laacibka Lyon hadda amaada lagu siiyo kale idriq marka Brazil waxa leeyahay quarter finalka meelaas way ma kartaa laakiin favorite maahan way aynu galno saaxiibka aynu galno Umar Cabsan inankii koobka Afrika soo qaaday ninkii markaasi adduunku ka hadlay magac ugu badan Soomaaliya soo hooyay runtii aad iyo aadna loo hadal qaaday sawir guud naga sii marka hore adiga Umar xiriirka inga dhaxeeya wallahi aad u mahadsantahay Umar yaaniga waxaan isnaqaanay muddo dhowr iyo 10 sano Umar wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo yani garsoorka soo galay anna waxa ahaa nin dhalinyaro oo ciyaarta tibinaya oo idaacadaha mid kamid ah idaacada Goal FM u shaqeynaya xilligaas waxaan ku arki jiray isagoo qabanaya ciyaaraha Ramadaanka ee xafadaha soo qabanayo waxa jirta maalin aad iyo aad aan xasuusto oo isagoo oo u socda tababar oo wata mooto Falcon wata iyo anigoo u socda inaan idaacada yani aan shaqo u aado ayaa waxa ku kulanay maqaayad Fatxi la dhahayo ku taala isgoyska lambar 4 xilli hore قفتي قف كان قونو حمر بتي عمبوله في عم بيلا هاي عمبوله iyo kalan kale fiican ay leedahay markaas muu faada cajiib waliba muu faadiya dad absolute markaas waa sheekaysan markaas ku dhahay wax xasuusta markaas waxaan ku dhahay inuu tababarka garsoorka aad u culus yahay sababtoo ah ma hadda saakita dheelmatay aad tababarka tagtay aad ku soo laabatay waliba qarxi wax baa jiray ayaa haddana gala tartay inaad tababarto markaas wuxuu ku dhahay waxaan rabaa inaad tababarkan ka gaaro meel qof Soomaali uusan ka gaarin aad wax xasuusta ergaas marka Umar waagaas ilaa hadda waa isnaqaanay waxaan ahaa wariyaha ugu dhow yani oo xagga saxaafadda waxaan hadda wada joognay markii la bixinay abaalmarinta African Player of the Year ka qofkii meesha ku kulmay oo darankiisa bulshada u soo gudbiyay ayaan ahaa sidoo kale waxaan ku wada kulanay isagoo ciyaaro dhaxdhaxaadinaya koobka African Nation Cup-ka waa isla wada joognay oo aniga kamid ah baadi saxaafadda lagu casuumay horena dhacdooyin badan oo Afrika iyo dhacdooyin badan oo Soomaaliya way jooga u soo aheen marka xirfadiisa uu horumarinayay oo uu baranayay farta oo editing because marka afar baranaysa waa inay editing tahay oo aad taqaanid yani sida yani fiidiyoyaasha loo habeeyay waxa sina taqaan markuu baranayay dadkii yani oo kala tashtay oo garab ku siiyay oo uu imaanayay ayaan kamid ahaa oo xafiiska astaan oo uu jiray sida inta xasuusto marka nin yani oo mihnadiisa iyo mihradeedaba ama xirfadeedii tiisaba
saaxiib aan ku nahay oo kala warqaadno ayaanu labadeena ba ahayn marka laba nin oo wada koray baad ahaydeen labadana wada kore ba ahayn marka saaxiib halkaa ku daa ha oo saaxiiba marka wax badan wada shaqeyn wax badan tala kala qaadanay marka haddartaana marka uu aan u imaado tan ah noqoshadiisii iyo koobkii Afrika waxaad ahayd wariyaashii quraya ka joogay